sida culimadu sheegtay intaas haddana isdaba dhigay oo aan faan ahayn wax jira in kale aan arag soo qaban waayay markuu qofku ku nisboobo waxa loo niyeysanaa inuu ahaa qof ahlu khayr caruurtii iyo xaasaskii iyo ehelkii iyo saaxiibadii iyo ehelkii iyo maamulkii iyo dadkii uu indhaha ahaana ilaahay mid khayr leh ha ugu bedelo ayaguna ha noqdaan kuwa ilaahay nasiibkooda ugu soo dhigo dadkii uu ka tegey marka laga soo tago caruurtii iyo xaasaskii deegaankii uu ka tegey deegaankaas tobankii sano u dambeeyey dhowr nin oo muhiim ah ka tegey oo uu ka mid ahaa cabdullaahi digsi isagoo ciil qaba ayuu dhintay markuu dhintay si fiican baa loo xusay laakiin markuu shaqaynayay si fiican loolama shaqeyn suldaanka ugu duubniinka sarreeyey ugu maamuuska sarreeyey ee deegaanka galmudug inta la xasuusan yahay laga maamuuso ayaa isaguna soo maray oo geeriyooday asagoo ciil qaba siduu rabana loolama shaqeyno cabdullaahi jaamac dhoore waa hubaa asagoo ciil qaba inuu dhintay siduu rabana aan loola shaqeyn intaba si wanaagsan oo qurux badan oo ka sarreysa sida dadka la mid markay dhintaan loo xuso oo tan u dambayso ayaa qaraabo u xustay waxaa leeyahay marka intuu qofku nool yahay ha lala shaqeeyo xuska iyo quruxda badan ee markuu tagan yahay intuu nool yahay hala deymiyo oo ha lagula shaqeeyo mar hadduu dhinto xafladaha iyo qarashka inay gaarayaan ninka ilaahay waa marka wixii hadda ka dambeeya hoolka iyo geeli la qalay iyo baroorta inta qofku nool yahay waxtarka yahay ha lala garab istaago ha la deymiyo oo ha lagula shaqeeyo intaas dalkana wax ku haysa ayagana wax ku haysa dadka khiyaarta ama ehelka ama deegaanka goobtiina waqtigiina way kaga mahadcelinayna anuu ku hadlaya magaca dowladda galmudug waxaan ka tegay mas-uuliyiinta joogta waxaa jooga wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda mukhtaar waxaa jooga saraakiisha amniga qaybahooda kala duwan waxaa jooga boqorro saadiin oo ugaasyo maxaan ku dhahdaa nabadoono iyo sabadoono dhammaantiin waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aadna waan kaga mahadcelinayaa anuu marna galmudug ku hadlaaya marna qaraabada ku hadlaaya wabilaahi tawfiiq